Waan ku salaama adiga muuqaalkani daawanayo. Waxaan kuu rajaynayaa inaad caafimaad aad ku daawanaysid muuqaalkan. Waxa aan jeclaysiin inaan idinla wadaago sheeko goor dhexda ah meel ka akhriyay. Sheekadani waxa ay ka turjumaysaa waaqica aynu ku noolnahay iyo sida ay dadku noqdeen. Sheekadani waxa ay dhex maraysaa nin oday ah iyo wiil yar oo hadda ay noloshu u hor leedahay oo doonayo in adduunyada wanaagsani loo tilmaamo. Waxayna sheekadani ku bilaabmanaysaa sida tan. Wiilka yar, adeer ma ii sheegi kartaa meesha laga raaco tareenka u socda adduunyada wanaagsan? Odayga, adduunyada wanaagsani xagee ayay ku taalaa? Wiilka yar, waa adduunyo ay iiga sheekayn jirtay ayeeyo. Waa adduunyada ay dadkii weli ay dad yihiin. Waa adduunyada dadka qalbiyadoodu ay nadiifka ka tahay xaasidnimada. Waa adduunyada ay dariska weli ay isjecel yihiin, isna xaal og yihiin. Waa adduunyada weli saaxiibtinimadu ay qiimo ka leedahay. Odayga, iga raali ahow wiilkaygiiyow, meesha u dambeysay ee tareenka caalamkaasi laga raaci jiray waxa uu ahaa gudaha maskaxda ayeeyada. Iyadiina way dhimatay. Haddaba, sheekadani maxaan ka faa'iidi karnaa? Ani ahaan marka aan cabiro ra'yiga ku aadan waxaan ka faa'iidi karno sheekadan waxa ay tahay in adduunyada wanaagsani ay qofka gudihiisa ku jirto. Adiga ayaa wanaajin kara adduunyadan, adiga ayaa xumeyn kara. Noqo qof wanaagsan, dadku way wanaagsanaan doonaan. Dadka ula dhaqan si wanaagsan, iyagana waxay kula dhaqmi doonaan si wanaagsan. Saaxiibtinimada qiimee oo qofka aad saaxiibka la tahay garab istaag marka uu kuu baahan yahay ee xaaladaha adag uu ku jiro, isagana waxa uu qiimeyn doonaa saaxiibtinimada. Dadku waxa ay yihiin sida aan ula dhaqanno. Haddii wanaag aan ula dhaqanno, wanaag ayay noola dhaqmayaan. Way dhici kartaa marmarka qaar in wanaag aad ka filanaysay qof aad ka heli weydo, laakiin dadka oo idil isku mid ma ahan. Ugu dambeyntii, aan wanaagsanaano, dunidu way wanaagsanaan doontaa. Xitaa haddii aan dhimanno, wanaag ayaa nagula xasuusan doonaa.